runtii maantay farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo saddexda xafladood ee kala duwan ay ugu horeyso tababar u soo xiridii gabdhaha Soomaaliyeed ee ciidanka booliiska ee Haramcad wiilashii ka soo qalin jabiyay oo afarta ahaa inta kalena ay u suurtoobi weysay ee ka soo qalin jabiyay dalka walaalanaha ee Masar iyo dhalinyarada cusub ee loo qaatay Leeli Sarkaal waxaan idin leeyahay hambalyo 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 hadal leeyma hambaynin ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa hooyadii General Barisan oo ku daro waa aabihii ciidamada qalabka sida runtii intaan ku sugnaa 14 bilood kursigan xukuumadda waxa ay garab istaagay oo har iyo habeen dadaal ila waday ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska General Xijaar oo aan marar badan hortiina ka sheegay inuu mas'uul igaga yahay amniga guud iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Muqdisho waan uga hambalyeynaa sidoo kale saad la socotiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ciidamada ugu dardarta badan ugu shaqada badan ugu wax soo saarka badan haddii aan leeyahay xagga tababarada haddii aan leeyahay xagga tirada iyo xagga tayadaba marka waxaan leeyahay dadaalka waa in inta laga sii badiyaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo saad la socotiin booliiska Soomaaliyeed maanta aad ogtihiin inuu dalka doorasho ku jiro way hay'adda ugu sarreysay amniga doorashooyinka midka gaar ahaan iyo midka guud ahaanba haddii ahaan lahayd midka dawlad goboleedyada iyo haddii ahaan lahaydba midka gaarka ah ee magaalada Muqdisho saad la socotaan dalka doorasho ayuu galay hoolkan quruxda badan aad u jeedaan ee General Kaahiyana waxa maalmo dhaweed ka hor lagu qabtay doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga ee ugu horeysay haddana dalka uu hore ugu sii soconayo doorashadii golaha shacabka runtii waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo kuna booriyo kuna adkeeyo kuna faro dhammaan dawlad goboleedyada haddii ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah 10 magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardargeliyaan doorashada golaha shacabka hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa arrin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inay culays ku saaraan in hawsha doorashada golaha shacabka la boobsiyo si dalka uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dawlad cusub iyo nidaam cusub hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddiga doorashooyinka heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka una kala diray 10 magaalo ee doorashooyinka ka dhacayso saa darteed wax kasta waa diyaar wixii awoodeena ah biyo sacbahaga looga dhargaa sacbadeena waa inaan wax ku qabsanaa cidna waa inaan sugin doorashaduna way dhamaanaysaa insha Allah laakiin su'aashu waxa waaye in ay shacabka Soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhamaato anigaas ka ra'iisul wasaare aan Roblana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faariqiyo ugu wareejiyo qofka Ilaahay uu calfo hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo way iga go'an tahay arrintaas waxaan rabaa halkan inaan Allah subhanahu wa ta'ala uga bariyo dhammaan saraakiil xigeladii dableedii dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee ku nafwaayay intii halgankan dib u dhiska dalka lagu jiray oo ay ugu horeyso xildhibaanad walaashay xildhibaanad Canab saygeedii iyo saaxiibadeedii iyo dhammaan intii Soomaaliyeed ee ku dhimatay
soddonkii sano ee halganka taariikhi ah ugu jirtay dib u soo celintii qaranka Soomaaliyeed ilaahay waxaan uga baryaa subxaanahu wa tacaala inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo qabrigoodina u waasiciyo sidoo kale carruurta agoomada ah oo aan runtii aad uga danqado mar kastoo aan arko iyo mar kastoo aan soo xasuusto ugana mahadcelinayo waxaan aad uga mahadcelinayaa Generaal Mukhtaar oo ah aasaasihii xaruntaas iyo Generaal walaalkay Ali Gaab waxaan uga mahadcelinayaa sida dadaalka leh ay xoog u saareen sidii ay agoonta u badbaadin lahaayeen waxna u bari lahaayeen mustaqbalkana ay uga faa'iideysan lahaayeen anigana diyaar ayaan har iyo habeen u ahay agoontaas inaan garab siiyo sidoo kale waxaan halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo dowladda Turkiga oo gacan naga siisay dhammaan tababarada joogtada ah ee la siiyo dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka haddana ay ugu dambeysay gabdhihii walaalaheen ahaa ee ka soo qalin jabiyey tababarkooda ku soo dhameeyay dalka Turkiga ee Haramcad waxa idin leeyahay waqtiga waa cariiri hadalkii hore loo yiri aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato insha Allah gacmaha is qabsanno dalkana aan doorasho galino wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.